running far away. Would I run off the wall someday? Nobody knows, nobody knows. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada kanaalkan. Maanta waxaanu soo koobaynaa taariikhda xiisaha leh ee Soomaaliland laga soo bilaabo xilligii gumeysiga xorriyadda midowga Soomaaliya, dhacdooyinka iyo horumarka ay gaadhay maanta. Haddii aad jeceshahay muuqaaladana kale, fadlan subscribe, like and share, lana wadaag saaxiibada. qarnigii 19aad dhulka maanta loo yaqaano Somaliland waxa uu noqday maxaliyad uu maamulayo Ingiriisku. Waxaa loo yaqaanaa British Somaliland. Ingiriisku waxa uu daneynayay dekedda Berbera iyo muhiimadda ay leedahay meesha Somaliland ee gacanka cad. Intii gumeysigu jiray, bulshada deegaanka waxay sii wadeen dhaqamadooda iyo noloshooda, inkasta oo maamulka gumeysigu saameyn weyn ku yeeshay dhinacyo kala duwan. 20kii Juun 1960, Somaliland waxay awood ka qaaday dowladda Ingiriiska, waxayna noqotay dowlad madax bannaan. Shan maalmood kadib Luulyo 1960, waxay la midoobeen dhulkii Talyaaniga gumaysan jiray si loo sameeyo Jamhuuriyadda Soomaaliya, iyada oo himiladu tahay in la raadiyo Soomaaliyada. Sanadihii xigay waxaa soo baxay dowlad iyo cabashooyin ku saabsan maamulka iyo awood qaybsiga si dowladdu u shaqayso. Sanadkii 1969, waxaa talada dalka la wareegay dowlad militari ah oo hogaaminaya Jaale Maxamed Siyaad Barre, Allah u naxariistee. Dhammaadkii 1980-yadii, dagaalo culus ayaa ka soo bilowday waqooyiga Soomaaliya, kuwaas oo sababay burbur ballaaran iyo barakac. Somaliland waxay dib ula soo laabatay madaxbannaanideedii 18 May 1991, ka dhacay Burco. Ergooyin iyo hogaamiyayaal ka socday beelaha wadajira waqooyiga Soomaaliya oo ku dhawaaqeen in dib loo laabtay madaxbannaanidooda ay sheeganayeen in ay heleen 26 Juun 1960. Tan iyo markaas, Somaliland waxa ay samaysatay hay'ado dowladeed, ciidamo, dastuur iyo nidaam doorasho oo gudaha ah. Maanta Somaliland waxa ay leedahay hay'ado dowladeed iyo nidaam doorasho oo gudaha ah. Arrinta aqoonsiga ee Somaliland weli waa mowduuc taagan. Somaliland waxay isku aragtaa dal madax bannaan, halka inta badan beesha caalamka ay weli u aqoonsan yihiin in ay tahay qayb ka mid ah Soomaaliya. Taariikhda Somaliland